dilka iyo ilmagaleenka si uu ula kulmo ugxan ku safraysa tuubada fallopianka haddii shahwadaada wax ka mid ahi aysan gaarin ukunta qofka dumarka ahi uur ma yeelanayo xilliga wareega caadadaaduna way imaanaysaa haddii unuga shahwadaadu gaaro ukunta oo uu galo ukunta waxay noqonaysaa mid bacrisan ukunta la bacriyeyna waxay u baahan tahay inay u safarto ilmagaleenka si ay ugu dhegto gudaheeda hoose si uu uurku u bilowdo haddii tani dhacdo qofka dumarka ah oo uu uur leh ma heli doono caadadeedii ilaa ilmaha uu dhasho ama uurku uu dhammaado haddii aad rabto inaad ilmo dhasho waxaa wanaagsan inaad lahaato miisaan caafimaad qaba inaad galmooto wakhti khaas ah inta lagu jiro wareegaaga iska ilaali cabidda alkolo fara badan iska jooji sigaar cabiddiisa iyo isbaar oo iska daawee wixii infekshan ah wixii caafimaad ah ee arrimaha ku saabsan waxaad la hadli kartaa dhakhtarkaaga lamaanuhu ma isku galmoon karaan iyagoon uur yeelan waxaa laga yaabaa qofka dumarka ahi inay doorbido ilaa laga gaarayo heer kale ee nolosheeda ah ka hor inaysan uur yeelan waxaa laga yaabaa inay sugto wax yar ilaa iyo intii ay ka dhasho ilmaheeda ugu dambeeyey ama waxaa laga yaabaa inaysan rabin inay ilmo dhasho gabi ahaanba dhammaan go'aamadan waa wada fiican yihiin waana suurtagal weli inay sameeyaan oo ay ku raaxaystaan galmo iyagoon uur yeelan iyagoon isticmaalaya hababka dhalmo joojinta waxaanu dhugdhow u yeelanaynaa hababka fiidiyowga loogu yeero waa maxay dhalmo joojiyuhu hadda ka waran haddii aad adigu uur yeelato laakiinse aadan qorshaynin inaad ilmo dhasho Australia gudaheeda waxaa jira fursado tiro yar waxay dooran kartaa inaad sii wadato uurkaada waxaad qorshayn kartaa inaad ilmaha markaad dhasho cid kale korsato waxaa kala hadli kartaa dhakhtarka wax ku saabsan soo tuuridda ilmaha kuwani waxay noqon karaan go'aano dhib badan sidaa daraaddeed waxaa ugu wanaagsan inaad taageero ka heshid dhakhtarkaaga xusuuso go'aanka ah inaad ilmo dhasho iyo haddii kale oo ay saas tahayba iyo goortii qofba qofka kale wuu ka duwan yahay weliba waa suurtogal inaad samayso oo aad ku raaxaysato galmo adoona uur yeelan haddii aad u aragtid fiidiyowgan mid ka faa'iido leh waxaa laga yaabaa inaad jeclaato daawashada fiidiyowgii aan kor kaga soo hadalnay waa maxay ilmo joojintu ama fiidiyowga kale oo la xiriira waa maxay caadadu